in Somalia. waan idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale in Soomaaliya iyo muuqaal kale oo xiiso badan kuna saabsan dalkeena hooyo ee Soomaaliya. waxaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa shanta magaalo ee ugu horumarsan Soomaaliya burburkii kadib isla markaana sameeyay soo kabashada dhaqaalaha bilicda horumarka iyo nolosha. magaalada shanaad Baydhabo Janay waa magaalo dhacda koonfur galbeed Soomaaliya. hadda waxay caasimad u tahay maamulka koonfur galbeed waana xaruntii gobolka Baay. waa magaalo qadiimi ah oo taariikh dheer ku leh mujtamaca Soomaaliyeed dhexdiisa. magaalada Baydhabo wax soo saarkeedu waxa uu ku xiran yahay xoolaha nool, beeraha iyo aeroboortka magaalada, waxaana jira dhaqaale aan sidaa u badnayn oo ganacsiga ka yimaada. magaalada Baydhabo iminka aad ayay u soo kabanaysaa kadib colaado iyo abaaro muddo badan ragaadiyay. magaaladan Baydhabo Janay dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa in ay ku dhow yihiin 2 milyan oo mujtamaca ah kuwaasi oo kala dhaqana balse aan sidaa u kala dhaqan fogeyn. magaalada Baydhabo ma lahan deked, waxaana ugu wacan Baydhabo bad iyo webi midna ma maro. magaalada afraad Kismaayo. magaalada Kismaayo waa magaalo dhacda koonfurta Soomaaliya. hadda waxay caasimad ku meel gaar u tahay maamulka Jubbaland waana magaalo madaxda gobolka Jubbada Hoose. Kismaayo waa magaalo xadaari ah oo taariikh fog leh, Soomaaliyana aad looga yaqaano, dadkuna ay jecel yihiin, waxaana ku nool dad Soomaaliyeed oo kala duwan. wax soo saarka magaalada Kismaayo waxa uu ku xiran yahay kalluumaysiga, xoolaha nool, beeraha, aeroboorka iyo dekedda. waa magaalo qurux badan oo isku haysata dhammaanba khayraadka muuqda. waxaa mara bad, webi iyo weliba sidoo kale dhulbeereed aad u qurux badan. waxay caan ku tahay xeeb dheer iyo deegaano dalxiiska loo aado oo inta badan dadka Soomaaliyeed ay jecel yihiin, waxaana ka mid ah deegaanka caanka ah ee Goobweyn, halkaasi oo badda iyo webiga ay isaga daraan. waana meel aad u qurux badan oo dadku ay jecel yihiin inay u dalxiisaan marka ay tagaan magaalada Kismaayo, maadaama ay tahay qayb Kismaayo ka tirsan deegaanka Goobweyn. mujtamaca kala duwan ee magaalada Kismaayo ku nool oo dad xadaarad iyo taariikh fog leh waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 2 milyan, waxayna magaaladu sameynaysaa koror dhanka kobaca iyo dhaqaalaha intaba ah. magaalada saddexaad waa magaalada Boosaaso. waa magaalo dhacda bariga Soomaaliya, waana magaalada ganacsiga maamulka Puntland. waxay xarun u tahay Boosaaso gobolka Bari. Boosaaso waa magaalo taariikh fog, dadkeeduna ay yihiin kuwa xadaari ah, waxayna ku wanaagsan tahay dhanka ganacsiga iyo xamaalashada. magaalada Boosaaso waxay sameynaysaa koboc dhaqaale iyo mid dad oo aad u ballaaran tan iyo burburkii kadib. wax soo saarkeedu waxa uu ku xiran yahay kalluumaysiga, xoolaha, ganacsiga, dekedda iyo aeroboorka. waana magaalo aad ugu wanaagsan dhanka ganacsiga. magaalada Boosaaso oo sidoo kale dadku ay u yaqaanaan Bandar Qaasim, waxaa dadka ku nool oo kala duwan la sheegaa in ay gaarayaan 2 milyan. magaalada labaad waa magaalada Hargeysa. waa magaalo ku taalla waqooyiga Soomaaliya, waa caasimadda Somaliland, sidoo kalena waa caasimadda labaad ee dalka Soomaaliya. magaalada Hargeysa waxay xarun u tahay gobolka Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya. waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu taariikhda fog dhulka Soomaalida iyo guud ahaan Geeska Afrika. magaalada Hargeysa waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dhanka kobaca dhaqaalaha, deegaanka iyo dadka burburkii kadib, waana magaalo muddo badan nabad haysatay. wax soo saarka magaalada Hargeysa waxa uu ku xiran yahay xoolaha, aeroboorka, ganacsiga, dalxiiska iyo lacagaha qurba joogtu ay soo diraan. magaalada Hargeysa bad iyo webi midba ma lahan, laakiin togag ayay leedahay. waa magaalo aad u qurux badan markii loo eego geyiga Soomaalida magaalooyinka ku yaala. magaalada Hargeysa oo kobac aad u ballaaran sameynaysa, haddana dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin 3 milyan. magaalada koobaad waa magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho waa magaalo dhacda galbeedka badweynta Hindiya, waa caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
magaalada muqdisho waa magaalo aad u qurux badan badweynta hindiya ayaana kaga hareeraysan 3 jiho waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan qaaradda Afrika barina waxay ka mid ahayd magaalooyinka dunida ugu wanaagsan waa magaalo wax soo saarkeedu uu ku xiran yahay kalluumaysiga ganacsiga dekedda iyo aeroboorka magaalada muqdisho ee gobolka banaadir waxaa sidoo kale loo yaqaanaa xamar cadde waa janno yar waa magaalo aad u bilic qurxoon magaalada muqdisho waa dad ay degan yihiin dad xadaari ah oo kala duwan dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan intaba waxaana ku nool dad xitaa aan Soomaali ahayn laakiin magaaladan in muddo deganaa oo muqdishaawiya dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee xamar cadde waa dad ganacsada waxaana lagu tilmaamaa inay yihiin shucuub kala duwan 4 milyan ayayna gaarayaan qiyaas ahaan daawadayaal muuqaalka xiga waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 5 magaalo ee ugu liidata dalka Soomaaliya haddii ay jirto magaalo maankaaga ku soo dhacday ee liidato waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta hoose ee commentiga aragtidaada waxaan idinkaga mahadcelinaynaa daawashada iyo la socodka in Soomaaliya haddii aad ku cusub tahay channelka nagu soo biir oo na dhiirigeli oo subscribe dheh gambaleelkana riix si muuqaaladooda ay kugu soo dhacaan mahadsanidin in Somalia